gudoomiyaha degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir mudane Abuukar Cadow ayaa kormeeray qaar ka mid ah iskuulada sare ee ka howlgala degmada Dharkeenle kaasi oo ka socda imtixaanaadka sanad dugsiyeedka shahaadiga ee dowladda dhexe ka qaadayso dugsiyada sare ee ka howlgala dalka. Gudoomiyaha degmada Dharkeenle oo kormeeray iskuuladaasi ayaa dhiirigeliyay ardayda iyo maamulka iskuulka isagoo ku amaanay dadaalada kala duwan ay ku bixinayaan horumarinta waxbarashada. gudoomiyaha degmada Dharkeenle Abuukar Cadow ayaa kormeerka kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo ku amaanay ciidamada ammaanka sida ay heeganka ugu yihiin badbaadinta shacabka iyo sidoo kale la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah. saakay waxaan boqosho ku tagnay iskuulaadka degmada Dharkeenle ee uu ka socdo imtixaanka sanad dugsiyeedka 2018-2019 oo fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ardada ka qayb qaadanaysa imtixaankaas ayaan soo booqanay. runtii waxaan rabnaa inaan halkan ugu mahad celino ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo booliska degmada Dharkeenle oo si wanaagsan u sugayay ammaanka goobaha ay ka socdaan imtixaanaadka. runtiina waxaan u rajaynaynaa ardada imtixaanaadkaas galayso guul iyo inuu Ilaahay u fududeeyo imtixaankaas. waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa inta dhimanna inay noogu dhamaato si ammaan iyo deganaan ah. waxaan kaloo halkan ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare oo qabanayso imtixaankan. waxaana rajaynaynaa insha Allahu tacaala inuu noogu dhamaado guul inta maalmood oo noo dhiman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور سعيد تالي لورباين تقرن كصوماليات مقالة مقدشو.